بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن مالين قروح بدن وقت والبا كوتاي وحن كلها هيا كو هذا وقتي أد وفرحسن تاي ورجينيا هاتن ومقالكي الداون اسمه إن العافمات خبطه حديت حنوسن تاين إلهي وحن كاجا رجينيا إنه كسي عافمات دقدقة هل كان وأكرم أونلاين كولج أنا كان وحنا بكر محمد عبد الله أستاذ سونامي جبتر كان اللباد مادة كيمستري إن سو قارن إن شاء الله وحن قادم دونا 10 كيسي كواد وحن قادم دونا أما أن بلاوي دونا جبتر ليرة هذا classification of matter طبعا matter كملاحظة قيد مهمة أي كعيار دون تامر كان كهذا لأن كيمستري يوري فيزيكس كيمستري كهال مهمة كعيار دون توايو مر كان كيمستري سو definition قرينا من سو قيحيني وحن كشكنا كيمستري إن لو قدر سو لحظة walaxda waxa laga darsaayay marka sifadeedii qaab ismeedkeedii waxa ay ka kooban tahay ayaa laga darsaayay marka matter is very important for us in studying chemistry muhiim ayuu noo yahay marka ciwaankan wuxuu ka hadli doonaa kala soocitaanka walaxda ayaan kaga sheekeyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka hadli doonaa ama walax ama qeybaha aan kaga hadli doonaa ciwaankan waxa ka mid noqon doona matter waxaan ka hadli doonaa sifada ay leeyihiin walaxda waxaan ka hadli doonaa aragtida walaxda waxaan ka hadli doonaa xaaladaha walaxda ay marayso insha Allah waxaan ka hadlaynaa isbedelka ku imaanaya walaxda waxaan qaadan doonaa kala soocitaanka walaxda anagoo ku saleynayna waxa ay ka kooban tahay composition anagoo ku saleyn ugu dambeyntiina chapter review questions oo anaga aan ahmid badan siin doonin ayaan soo gaari doonaa insha Allah jabtarka marka ujeedooyinka laga leeyahay qayb walba waxaan u aadi doonaa meesha aan akhrinayno ayaan ku tilmaami doonaa waan rajaynayaa in haddii casharada qaarkood ay ku kala dhimnaadaan ama ay ku kala dhiman yihiin inaad nala fahansan tahay isla mar ahaantaana aad ka mid noqon doonto Akram Online College aad iska diiwaan gelin doonto waxaad ka heli kartaa maadooyinka scientifiga afarta maado cilmiga fasal walba 1 ilaa 4 sidoo kale waxaad ka heli kartaa technology oo form 1 up to form 4 luqadana sidoo kale waad isaga dhisi kartaa xisaab waad isaga dhisi kartaa waxaan ku leenahay marka is a place where you can learn everything inshallah welcome عشركان عشر كحيجة هدي على نصيب ويالله إلهي حمدي هدي على نصيب ويالله ومد لحظة كبحنا واحد أجاتا إن لجاغير رايو كوليجك وهي هاي وحمرك أجوه رئيسة بيج كسائل لواتنا ده بوجر نوكو حسن قيتي 2.1 إن ولا حد هرتور عن قيحنا مهمة دلجلية واحد كمدة إن أمرك ولا حد عن قيحنا إذا مر أهانت عن كلا صعنو mass iyo weight oo inta badan physics-kana uu aad uga hadlo activity ayaa markaa ku xigi doona waan ka socon doonaa marka activity-gaasi waxaan aadi doonaa page-ka 30aad meeshaan waxaan ku qaadan doonaa marka ugu horeysa waxa la yiraahdo matter sababtoo ah ujeedooyinka jabtarka laga leeyahay waxa ka mid ahaa in aynu fahanno maxaa la dhahaa marka hore matter qeexitaankiisii waxaan filayaa inaan jabtar koowaad ku soo qaadanay sidoo kale waxyaabaha nooga la baahan yahay inaan fahanno waxa ka mid ah wax la yiraahdo mass inaan fahanno and weight inaan sidoo kale labadaan aan kala fahanno qaybta marka muhiimadda laga leeyahay waxay tahay in labadaan xabo aan baadi goob u galno si aan ku soo heli lahayn aan fahanno insha Allah waxaan noo soo qaatay sabir oo markaasna tusinaya weight-ka iyo mass-ka si marka inuu fahanno no matter intaan kaas gaarin ka hor waxaan ku hormaraynaa matter buuga wuxuu leeyahay waxa lagu qeexaa inuu yahay sida marka anaga waa iska soo gaabinaynaa horna waa u soo qaadanay matterka waxa la yiraahdaa waa anything hora u soo qaadanay anything whichna waan dhigi karnaa thatna waan dhigi karnaa anything which has
a mass and occupies space. ujeedkii marka koowaad ee qaybtan laga lahaa hal ka mid ah waynu fahanay oo matter maxaa la yiraahdaa waa walax taasi oo leh culays marka ugu horeysa tan labaadna faraaqo buuxinaysa occupies space. That's it, the first lesson objective kaasa ka mid ahaa. tan labaad waxay tahay marka tusaalooyin soo qaadana wuxuu leeyahay neefta in neefsano cunada in cunno biyaha in cabno dhammaantood waxay tusaale u yihiin walaxda buu leeyahay. haddana walaxdaasiyo inta ugu maharayo wuxuu leeyahay oo anaga nagu hareereysan biyo in cabnay cuntada in cunno hawada neefta in neefsano menu qaadano intaasi wuxuu leeyahay waa walax isla mar ahaantaana anaga ay noogu wareegsan marka hadii aad dhahdo bal macalinka walax buu ku jiraa ama matter ayuu ku jiraa maxaa la dhahaa matter walax maxaa laga wadaa hadaa istiraahdo tasaale waxa kaga mid ah hawada aynu qaadano is matter sidoo kale cuntada in cunno waa matter biyaha in cabno waa matter kaasa walax ayaa la yiraahdaa markaas wuxuu leeyahay hore ma u egeyd in xitaa walaxdu did you know that even we are made of matter wuxuu dhahay horta hore ma u egeyd xitaa anagu xitaa aan walax ka sameysanahay yes arinta ayada ka fikir buu ku yiri yes anagu xitaa waxaan nahay walax ayana laba sawir marka meesha nooga muuqata midna wuxuu sameynayaa taking up oo hal sawirna wuxuu sheegay kor u qaadaya halna wuxuu sameynayaa uu riixaya marka labadaas sheegid waxaan la barbar dhigi doonaa mass iyo weight which one is a mass and which one is a weight midka ayaan ogaan doonaa simply wuxuu leeyahay marka mass marka la yiraahdo mass wuxuu leeyahay is a measure mass waxa la yiraahdaa buu yiri is a measure waa cabirida oo maxaa la cabirayaa of the amount waxaa la cabirayaa amount cadadka of an object ee shay cadadkiisii markii la cabiraayo taas waxaan dhahaynaa mass shayga cadadkii marka la cabiraayo waxaan dhahaynaa mass oo la ogaanayo intee kilogram waaye intee gram waaye si markii la ogaanayo waxaan dhahaynaa waa mass sidoo kale wuxuu sheegayaa masska in maagtayo lagu cabiro gram iyo kilogram yani halbeega masska inuu yahay gram iyo kilogram inuu yahay aynu tilmaamaya waxaan loo soo gaabiyaa buu ku leeyahay m small and m capital labadaba waa loo qaadan karaa yani hadii m capital la qaatana stands for mass m small and m capital two letters wax dhibaato ma labadaba waa loo qaadan karaa waa loo soo gaabin karaa ayuu leeyahay kilogram iyo gram waxa loo soo gaabin karaa gram waxa loo soo gaabin karaa g kilogram waxa loo soo gaabin karaa kg waayahay wuxuu leeyahay marka masska ereyga mass culeyska la yiraahdo wuxuu cabiraa buu ku leeyahay cadadka walaxda ee ka kooban tahay ayuu cabirayaa intaas oo kiilo waaye 5 kiilo bariis ah 20 kiilo bur ah 50 kiilo saas ah that's all waxa waaye mass ayaa la yiraahdaa okay inta kadib shayga culeyskiisa wuxuu dhahay waa mid go'an waayo yiri macnaha mid go'an waaye xaalad kasta oo la tago shayga culeyskiisu ama masska shaygu waa xaalad go'an meel walba la tago ti marka taas la mid ah contrary mid taa u dhiganta weight-ka oo kale marka la fiiriyo weight-ka waxa la yiraahdaa waa awoodda ku tiirsan gravity-ga ayaa la yiraahdaa meelaha kale noogu imaan doona marka qeexitaankiisa wuxuu leeyahay massku waa constant mid go'an weeyaan meel walba oo aad tagto laakiin weight-ka uu isbedelaya oo markaan shay saan u soo qaadno hadda markaan saa u sii qaadno hadda markaan kor sii geynayno wuu isii bedelaya shayga uu isbedelaya waa ima shayga anaga aan kor u qaadayno ama hoos aan u soo dhigayno isaga wuxuu ahaan doonaa joogto ah ayuu ahaan doonaa salaam buugan oo kale markaan saan raado waxaan haynaa jesus la buuga marka culeyskiisa shaygan cadadka culeyskiisa uu koon yahay waxaan deenaa waa mass qaataan kor aan u soo qaadayna waxa la dhahaa say way
marka wuu isrogayaa buu leeyahay ereyga mass iyo weight wuxuu yiri waa isku bedelan karaa marka si loo fiiriyo laakiin labada erey isku macno ma ahan wuxuu leeyahay farqiga u dhaxeeya mass iyo weight ayaa wuxuu yahay buu yiri masska waa cadadka walaxda ee shay halka weightkan uu yahay cabirida awood jiidida awood afisjiidka ee walaxda tusaale hadda sawirka markaa fiirisid oo kala soo laabano baysadan u soo laabo sawirka hore wuxuu ku tusinayaa in shay kor uu u qaaday sawirka labaadna wuxuu ku tusinayaa in shay riixaya marka shayga kor loo qaadayo waxaan dhahaynaa waxa waaye weight halka midka la riixayan uu yahay mass waayahay marka intaan oo idil waxay tilmaamayaan culayskii masskii iyo weightkii ayay wax badan tilmaamayaan marka weightna muxuu yiri marka weight wuxuu leeyahay is a measure weightka wuxuu leeyahay waa maxay is a measure waa cabirida oo la cabirayo maxaa la cabirayaa of the amount of force waxaa la cabirayaa of the amount of force waxaa la cabirayaa cadadda xooga waxaa la cabirayaa cadadda xooga ee acting on mass ee culayska lagu qabanayo masskaasi cadadka yani awoodda lagu qaadayo ayaa la yiraahdaa weight kaas weeyaan waa in la cabiro awoodda loo isticmaalayo shayga awoodda lagu qaadayo in la cabiraa waxa la yiraahdaa waa weight halka sida waxa la qaadayo ay yihiinna mass ay yihiin marka farqiyaadka u dhaxeeyo sheegaya marka sidoo kale weight wuxuu leeyahay inta badan waxa loo soo gaabiyaa W baa loo soo gaabiyaa W oo capital ah baa loo soo gaabiyaa halbeegeedana waa N ama Newton baa lagu cabiraa farqiyaadku sheegaya marka wuxuu leeyahay massku wuxuu leeyahay waa cadadka walaxda ee shay ku jirta cadadka walax ee shay ku jirta waxa la dhahaa mass buu leeyahay halka weightkan uu yahay awooddaasoo dhulka uu ku soo jeedanayo shayga dhulka marka laga qaadayo awooddaas loo qaadanayo waxa la dhahaa buu leeyahay weight weeyaan halbeegooda caalamiga ah masska waxa lagu cabiraa kilogram halka weightka lagu cabiro newton qiimaha masska mar walba isagu waa isku hal meel kasto la geeyo kilobris meel kasto oo u qaada kilobris u bay ahaanaysa SI marka wuxuu leeyahay sidoo kale weightkan shayga marka laga hadlayo weightkana wuxuu leeyahay isbedelka mar ka dambeeyay wuxuu sameeyaa isbedel buu sameeyaa okay isla ekeenta marka laga hadlayo masska waxa loo isticmaalaa in lagu cabiro shay kanina waxa loo isticmaalaa isla ekeenta moolada oo kale ayaa loo isticmaalaa in lagu cabiro weightka mass of an object can never be zero culayska shay uu leeyahay mass marka laga hadlayo marna ever ma noqdo isaga marna ever ma noqdo 0 gram wax la ma jiro weight of can object and weight of can object may no English kan xoga weight of can object can be 0 maya waxaan dhihi karnaa waxaan dhaynaa weight of object weight of object can be 0 weight of object can be 0 jida weight meesha oo English ka noocaas uu qoran yahay saan ka dhig weight of object can be 0 waa kaas weight of object can be 0 soddon iyo kow mass maxaa la dhahaa culayskii waxaan ka soo hadalnay mass maxaa la dhahaa sidoo kale waxaan ka soo hadalnay masska qeexitaankiisa soo sheegnay maatran sababana afwan maatran maxaa la dhahaa waa wax walba oo leh culays la maraantaana faraaqo buuxiya mass maxaa la dhahaa waa in la cabiro cadadka shay uu ka kooban yahay sidoo kale 0 ma noqon karo halbeegiisu waa kilogram sidoo kale waxa loo qori karaa waxa loo soo gaabin karaa M capital M small sidoo kale walaxdu marna isma bedelayso eberna ma noqon karto waa constant meel walba la joogo weight ka soo qabo waxa la yiraahdaa waa cabiraada la cabiro cadadka xooga ee shay lagu qabanayo cadadka xooga ee shay lagu qabanayo in la cabiro la yiraahdaa okay iyadu marka waxa loo soo gaabiyaa W sidoo kale way isrogaysaa oo culays marka uu ku duwan yahay
maxaa kuu soo haray newton way halbeegeeda sidoo kale ever buu noqon karaa weight-ka can be zero haddaan wax qabanin dee weight ma jira soo ma haddaan waxba aan soo qaadin there is no weight inta ma ku soo afmeerinaa wabillahi tawfiiq waan rajaynayaa in cashirka xiga aad igula saaxiibi doonto aad baan kaga mahadcelinayaa qiimaha iyo qaayahaaga iyo waqtiga aad ii hurtay thank you